soo dhawaada saaxiibayaal filimkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa gabadh lagu magacaabo Weedy waxaana soo muuqatay haweeney magaceeda sheegtay in la dhaho Dr. Strange iyadoo noo sheegtay inay tahay doctor cilmi nafsi oo shaqeeya dawladda waxayna Weedy u qaadi doontaa meel ammaan ah sanado badan kadib waxaa soo muuqanaya Weedy iyadoo ka shaqeysa meel makhaayada subax kasta waxay qaadataa dawooyinkeeda iyadoo nolol nool ninkeeda Maris kaasoo ah ilaaliye iyo wiilkeeda Carol noloshoodu guud ahaan way hagaagsan tahay laakiin waxay la daalacayaan dhibaatooyin dhaqaale xitaa lacagtii kirada guriga ayaa ku adkaatay taas awgeed Weedy waxay go'aansatay inay ka codsato shaqadeeda in mushaharka loo kordhiyo quraacda kadib waxay macaslaamisay ninkeeda iyo wiilkeeda kadib waxay u dhaqaaqday xagga shaqada markii shaqadu u soo dhamaatay waxay booqatay xafiiska booskeeda si ay uga codsato dalacsiin waxayna sheegtay inay 3 sano shaqada ka soo shaqeynaysay laakiin booskeeda si toos ah ayuu uga diiday wuxuuna ku yiri Weedy waanaad wali wax badan barato xilligii lagu dalacsiin lahaana ma joogtid iyadoo loo sheegay in mar kale ay ka wada hadli doonaan isla markaa shaqo badan ayay ku dartay Weedy way ka daashay shaqada qashinka laakiin rajada dalacsiinta awgeed way qabatay markii ay agaarka miiska lacagta tagtay nin sabool ayaa ka codsaday cunto iyadoo aan u sheegin booskeeda Weedy waxay siisay cunto ninka uu mahad celiyay waxaanu ku yiri waad naga mid tahay Weedy wax badan kama fahmin hadalkiisa kadibna waxay dhameysay shaqada waxayna u dhaqaaqday gurigeeda iyadoo jidka sii socota koox tuga ayaa isku dayay inay xumeeyaan way iska indhatirtay iyadoo ugu jawaabtay aamusnaan markii ay ka gudbisay buundada nin ayaa si dhaqso leh ugu soo cararay Weedy waxay u malaysay inay yihiin tuugadii hore markaas ayay boortada u isticmaashay si ay u garaacdo laakiin ninku waa isla ninkii saboolka ay cuntada siisay magaciisuna waa Merik wuxuu weydiiyay Weedy haddii ay dawooyinkeeda qaadanayso Weedyna midaas aad ayay ula yaabtay sidii uu ku ogaaday Merik wuxuu u sheegay in dawooyinka xadidayaan awoodeeda Weedy waxay u malaysay inuu waalan yahay laakiin Merik si uu u cadeeyay hadalkiisa ayuu ka booday buundada wuxuuna si nabad ugu dhacay buundada hoose iyadoona uunan wax dhaawac soo gaarin waqti yar kadib gaari xamul ayaa si buuxda u soo maray Merik dushiisa Weedyna aad ayay uga naxday midaas iyadoo isla markiiba wacday gurmadka degdega ah iyadoona isla markiiba halkaas kaga baxday subaxdii xigtay Weedy waxay kulantay la lahayd Dr. Strange laakiin ma aysan sheegin dhacdadii ay xalay la kulantay waxay sheegtay in riya cajiib aragtay oo awood super ku lahayd Dr. Strange waxay ku tiri waa in dawooyinka wax yar lagu kordhiyo markii ay gurigeeda ku soo noqotay waxay heshay fariin sheegaysa in guriga si dhaqso leh uga baxaan dhibaatooyinka dhaqaalana marba marka ka dambeeyay way sii kordhayeen laakiin Weedy waxay ku kalsooneed in mar dambe dalacsiin heli doonto maalinka la iyadoo ku jirta shaqadeedii qashin tuurista ayay aragtay Merik oo wali nool Merik wuxuu u sheegay inuu yahay Freek kale oo awood gaar ah leh jirkooduna uusan baabi'i karin kadib Merik wuxuu ku amray Weedy inay joojiso qaadashada dawooyinka habeenkii Weedy waxay ku turtay dawooyinkeeda musqusha maalmihii xigay Weedy waxay bilowday inay dareento isbedel jireed iyadoona bilowday inay dareento xanuun xoogan xitaa iyadoo macmiil u adeegaysa iyo si khalada u jibsay saxan bira kadibna ay fahantay inay leedahay super straight kadib markii ka soo baxday shaqada iyadoo gurigeeda ku sii wajahan ayaa isla tuugtii hore isku dayay inay dhibaateeyaan Weedy ayaa u jawaabtay iyadoona u adeegsatay awoodiisan cusub waxayna si fudud u garaacday tuugii hogaaminayay iyadoona si fudud ugu turtay meel fog iyadoona tuugtii kale ay iskaga carareen meesha iyagoo cabsanaya subaxdii xigtay Weedy oo ku faraxsan shaqadeeda Dr. Strange ayaa soo booqatay iyadoo aan ogeyn iyadoona u sheegtay inay maanta wada fadhi lahaayeen iyadoona u sharaxday faa'iidooyinka ay dawooyinku u leeyihiin Weedy ayaa ballan qaaday inay u soo socoto kadib booskeeda ayaa wuxuu hayay saxan bira oo qalloocsan iyadoona ku eedeysay Weedy iyadoona u sheegtay inay ka jari doonto mushaharkeeda Weedy ayaa cadad dareentay waxayna booskeeda ka qabatay qoorta iyadoona kor u qaaday iyadoona ugu hanjabtay inay dili doonto haddii ay ka jirto mushaharkeeda iyadoona booskeeda u cabsaday Weedy waxay la kulantay Merik si ay uga wada hadlaan awoodaha Merik ayaa Weedy u sheegay in dad badan oo kale ay jiraan oo awoodo leh laakiin dawooyinka ay dawladdu qortay awgood ayna dareemin awoodooda intaa kadib Weedy waxay u dhaqaaqday dhismaha terabiga iyadoona daaqada ka gashay dhismaha terabiga halkaas oo ay ka heshay falal bukaano badan waxayna ka heshay halkaas saaxiibkeeda Elmer oo ah saaxiibkeeda shaqada markay aragtay midaas Weedy waxay uga shakiday Elmer inuu leeyahay isna awoodo gaar ah intaa kadib Weedy waxay u timi Elmer iyadoona u sheegtay inuu iska daayo dawooyinkan uu qaadanayo iyadoona ku boorisay inuu leeyahay awood super straight ah intaa kadib Elmer wuxuu go'aansaday inuu joojiyo dawooyinka subaxdii xigtay Weedy waxa ka buuxday awood iyo kalsooni iyadoona gashay xafiiska booskeeda si ay uga codsato dalacsiin laakiin ka hor intaanay booskeedu hadlin Weedy ayaa waxa loo sheegay in la dalacsiiyay Weedy ayaana ku tiri haa mahadsanid si fiican ayaan u shaqeyn doonaa kadib markii Weedy ka soo baxday shaqadeeda waxa uu yimid Elmer oo sidoo kale u sheegay inuu joojiyay dawooyinkii wuxuuna tijaabiyay awoodiisa maskaxeed si uu laambad u shido kadib labadooduba waxay fahmeen in awoodahoodii laga xanibay carruurnimadoodii Weedy waxay go'aansatay inay marka hore xaliso dhibaatooyinkeeda dhaqaale iyadoona jeebisay ATM si ay iskaga bixiso lacagaha kirada ee lagu leeyahay intaa kadib Weedy iyo Emily waxay yimaadeen night club Weedy ayaana halka kula kulantay gabadh masaakiin oo la dhibaateynayo iyadoona garaacday dhammaan nimankii
nimankii si fududna ku cirib tirtay laakiin mid ka mid ah raggii ayaa isku dayay inuu gadaal ka soo weeraro Elmer ayaana u adeegsaday awoodiisa korontada intaa kadib Weedy waxay timi gurigeeda iyadoona siisay Maris lacagtii deynta waxayna heleen waqti wada jira subaxdii xigtay Weedy waxay soo qaaday wiilkeeda Carol saddex wiil ayaana dhibaatay iyadoona Weedy ka carootay midaas si fududna u jabisay 3 baaskiilo ay lahaayeen taasoo Carol uu ka argagaxay markuu arkay maadaama ay dhammaan deymihii iska bixisayna waxay bilowday inay waqti la qaadato qoyskeeda laakiin kooxdii Ned Clubka ayaa booliiska u sheegay weerarkii xalay Dr. Strange ayaana baaritaan culus bilowday Weedy Elmer iyo Marik ayaa isku raacay goobtooda khaaska ah ee ay ku ballaariyaan awoodahooda saddexdooda ayaana qorshe samaystay si ay dadka u badbaadiyaan laakiin Marik wuxuu ka walwalsanaa khatar Weedy ayaana u sheegtay in dadku xaq u leeyihiin inay ugu adeegaan awoodooda iyagoona sheegay inay dadka heli doonaan dhiirigelin sidaan amba u jecelahay inaad dhiirigelisaan oo like saartaan muuqaalka channelkana subscribe tirahdaan haddii aad ku cusub tihiin intaa kadib waxay u dhaqaaqeen si ay u soo badbaadiyaan dadka iyagoona afduubtay waadihii ilaalinaya xarunta laakiin dhaqdhaqaaqooda waxaa dareemay booliisku joogay meesha kadib Weedy ayaa ku dhufatay miis waxaana ka soo fakatay xabad ninkii booliiska ahaa iyadoona ku dhacday Marik laakiin midaas Marik waxa ma yeelin iyadoona ay ka carareen meesha kadib markii ay ku guuleysteen ay soo badbaadiyaan dadka laakiin goobtii waxaa isku soo hareeyay booliis isla markiina goobta waxaa ka bilowmay roob aad u xooggan laakiin Elmer ayaa wuxuu isticmaalay korontadiisa si uu booliiska u wiiqo isla markiibana saddexdoodu way iskaga carareen goobta iyagoona iskaga baxsaday laakiin Weedy waxay ka walwalsanayd inay wax dhici karaan waxayna joojisay gaariga Marik ayaa cambaariyay Emilyar isagoona uga digay awoodiisa inuu isticmaalo qaabaan mas'uuliyad lahayn intaa kadib Weedy waxay ku laabatay gurigeeda si ay qoyskeeda ula joogto Elmer wuxuu go'aansaday inuu awoodiisa sii isticmaalo isagoona intaa kadib u tagay Dr. Strange oo u sheegay inuu doonayo therapy isagoona jaajusay saaxiibkiis Marik una sheegay meeshuu ku dhunto waqti kadib ciidamo hubeysan ayaa soo qabtay Marik laakiin Weedy ma aysan ogeyn midaas Elmer wuxuu soo baqday Weedy wuxuuna u sheegay qorshe ay awoodooda ku isticmaalaan oo ay cidna joojin karin laakiin Weedy way ka diiday midaas si ay qoyskeeda u badbaadiso laakiin Elmer uu ka carooday midaas isagoona ka tagay intaa kadib Weedy waxay ninkeeda iyo wiilkeeda u sheegtay xaqiiqda laakiin Maris ma rumaysan midaas wuxuuna isku dayay inuu Dr. Strange waco Weedy ayaana ka celisay midaas markii xoog badan isticmaashayna Maris dhaawac yar ayaa soo gaadhay laakiin wiilkeeda Weedy ayaa weydiiyay sababta ay u samaysay midaas Weedy ayaana khaladkeeda garowsatay iyadoona iskaga baxday guriga si ay Elmer ula kulanto Elmer wuxuu la hadlay aabihii muran ayaana ka dhacay laakiin Elmer ugu dambeyn wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo awoodiisa isagoona ka takhalusay aabihii una isticmaalay awoodiisa isla markaa waxaa soo gashay guriga Weedy laakiin Elmer ayaa koronto u isticmaalay taasoo ka dhigtay Weedy mid miir beeshay markay soo miirsatayna waxay la kulantay Dr. Strange oo agteeda joogta Dr. Strange ayaana Weedy u sheegtay inay khatar tahay ayna u baahan tahay dawo si ay dadka u dhaawicin Weedy waxay xasuustay dhacdo ay ku dhaawacday maamulihii dugsiga markii ay yarayd Dr. Strange waxay ku tiri waxaan rabaa inaan badbaadiyo adiga iyo dadka kale Weedy waxay bilowday inay u hoggaansanto waxayna noqotay daciif habeen Elmer ayaa u soo galay Weedy oo siiyay music play ay yaraanteedii lahayd si ay u xasuusto cidda ay tahay laakiin Weedy way diiday inay baxsato laakiin Elmer wuxuu yiri maanta diiday laakiin maalin kale ayaad imaan doontaa kadib waxaa dhacay blackout gabi ahaanba magaalada Elmer wuxuu gaaray guriga Weedy oo Maris ku sugnaa Maris ayaa isku dayay inuu difaaco gurigiisa blackoutku wuxuu sababay in dadka ku jira xerada ay baxsadaan Weedy iyadana way baxsatay si ay qoyskeeda u gaadho laakiin Dr. Strange ayaa isku dayay inay joojiso Marik ayaa badbaadiyay Weedy laakiin Dr. Strange ayaa ku dishay rasaas dawadu qaatay awgeed jirkiisa ma badbaadi karin Marikna wuxuu dhintay isagoo la runta u sheegay adduunka Weedy guriga ayay orod ugu tagtay Elmer isagoona taagan Carol hoostiisa isagoona isticmaalaya koronto isagoona ku yiri ana dunida xukumo laakiin Weedy way ka diiday iyadoona bilowday inay la dagaalanto Weedy wali awoodeedu ma dhammayn taas awgeed Elmer ayaa gacan ku tuuray laakiin Maris ayaa u tuuray galofyo ka celin kara korontada markay gashatay Weedy waxay ku dhufatay Elmer daaqada isagoona ku dhacay barkada awoodiisa koronto awgeedna u dhintay Weedy qoyskeeda way badbaadisay waxay u sheegtay inay khasab tahay inay baxdo si ay u badbaadiso dadka kale ee la midka ah qoyskeeduna way aqbaleen midaas intaa kadib dawladdu waxay timi gurigooda waxayna ka heleen meydka Elmer maalmo kadib Weedy waxay bilowday inay bilowdo hawsha cusub inay dadka kale awoodaha soo furto iyo inay runta u sheegto dunida saaxiibayaal filimkeena maanta halkaas ayuu ku eegyahay haddii aad halkan la soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad like saarto muuqaalka channelkana aad subscribe tiraahdo halkan waxaan ku soo gudbinaa muuqaalo aad u xiiso badan magaca filimkan hoos ayaan idiin soo dhigay